madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo muddooyinka ugu dambeysay ku sugnaa magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland halkaasi oo uu kaga qayb galay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo si diiran ugu soo dhaweeyay xubno uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland xubnaha labada gole iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soo dhaweynta madaxweynaha kadib ayaa howlka nasashada oo warbaahinta kula hadlay waxa uu kaga hadlay wadahadaladii dhexmaray madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya kaas oo ku sheegay in heer wanaagsan uu gaaray isagoona hadalka sii raaciyay in isfahamkii dhexmaray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada loo baahan yahay in ay ka dhabayso dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina ay muujiso madaxweynaha ayaa waxa uu sidoo kale ka tacsiyay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac isagoona dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu baaqay in tacsi aysan waxba tarin balse loo baahan yahay in si guud loola dagaalamo ururka al-shabaab ee dhibaatooyinka ka geysta dalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland oo uu sheegay in bulshada isla dhaxmarayso in madaxweynaha Jubbaland uu doonayo inuu waqtiga karoosado isla markaasina uu galay dagaalo ku saabsan sidii loo marin habaabin lahaa arrimaha doorashooyinka Jubbaland waxaana uu madaxweynuhu sheegay in doorashada dowlad goboleedka Jubbaland ay xilligeeda ku dhici doonto howlgal kasta oo ka bilowda deegaanada Jubbaland waxaan u maleynayaa safar gaaban baan ku baxnay safarkaas oo ahaa ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynihii lixaad ee loo doorto tan iyo intii la dhisay Puntland inuu madaxweyne ka noqdo Saciid Cabdullaahi Deni oo aan odhan karo waxay ahayd munaasabad muujinaysay reer Puntland mas-uuliyadda iyo xilkasnimada iyo meesha ay Soomaaliya kaga yaalaan ay u ahayd saldhig Soomaaliyada cusub marka laga hadlayo iyo nidaamkan federaalka ah sida isbedeladooda u dhacayeen iyo sida dowladdaas abuuristeeda iyo isbedelkeeda iyo horumarkeeda intuba ugu dhacayay waxaan odhan karaa waxay ahayd munaasabad kulmisay dhammaan qeybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta Soomaaliya waxay taasi keentay fursaddaasi oo odayaashii dhaqanka iyo hooyooyinkii iyo qof waliba uu noo imanayo lahaa qof waliba yaan lagu kala tegin waxaa la isu sheego in la wada fadhiisto o la yidhaha war maxaa talaa ma wada hadli karaa wax ma isweydiin karaa taa macnaheedu wuxuu noqday in la wada hadli karo waxna la isweydiin karo oo macnuu yahay cidna uma maqna ceello uma qodno inaga inoo taallaan intaasoo mas-uuliyiin oo joogto Soomaaliya dee wixii khalad ay ilduufaan waa wax beri la isweydiinayo waxay noqotay markaa in la wada hadli karo gogol la isugu yimaado la wada hadlo cabashooyinka jiray la isu soo gudbiyey horey la isugu soo gudbiyey laga jawaabo waxaana ka soo baxay waxay noqotay ballanta aada maqasheen in Garowe la isugu yimaado bisha Maarso 20-keeda oo macnaheedu uu yahay in laga wada hadlo wixii la kala tabanayay khaladaadka jiray waxaa la kala tirsanayay iyo wixii horey loogu gudbiyo guddiga ka tirsanaa aqalka sanadka ee baarlamaanka oo ay hor yaaleen cabashooyin cidda wax laga tabanaya dowladda federaalka ee ahayd iyadaa laga rabaa inay intaa ka horeysa la timaado wax isbeddel oo muuqanaya oo ka beddelan dhaqankii shalay yaalay iyo wixii la kala tabanayay waa iyadaa waalida iyadaa mas-uuliyaddu saaran tahay wax laga tabanaya iyaday ahayd waan sugaynaa markaa muddadaas waxaan horta maanta ka tacsiyeynayaa qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho
shabeelle oo dad abri'aa oo masaakiina makhaayad iyo kaalin shidaal iyo qarax lagu sameeyey laakiin waxaa ayaan daraa maalin walba ma tacsi baynu ku jiraynaa tacsidu waxay u baahan tahay ficil in la sameeyo oo tallaabo la qaado waxaan u baahannahay tacsiun yaanaan ku jirin in ficil lala yimaado oo waa dad nala mida oo weliba naga liitay aan la dagaalano oon u tagno taas waxaan odhanayaa dowladdu tacsida faraha badan aan iska dayno on hawlgalno waxaa aada looga sanqadhiyaa axmed madoobe dagaal buu galay wuxuuna rabaa doorashada marar badan horena waan ka hadlay in doorashada dagaal baa lagu jiraa lama geli karo waxaan rabaa inaan idiin sheego annagoo dagaalka ku jiro ilaahumaa meesha ugu dambeysa la jiro yaa electionka jubbaland u dhacaya haddii ilaah yidhaahdo la codeynayaa cidda kusoo baxda ee mas-uuliyadda qaadanaysaa dagaalka iyo iskuma xidhna doorashadu maxamed qaasim cali waxar t v-ga Somali Cable magaalada Kismaayo.